halkan waa xureysan yahay qabaaraysi waa laga xoreeyay maanta waxaan taagannahay jilib markaan joognaa howlgalkan magaciisa waxaa la yiraahdaa seefta qarsoon waa howlgal barakeysan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya howlgallo culus ka waday dhulka ballaaran ee u dhaxeeya degmada Marka iyo magaalada Muqdisho in guulo la taaban karo ay ka soo hoyeen howlgalka loo yaqaano seefta qarsoon. kooxda khawaarijta ayaa falal aan xandarra iyo dambiyo bini'aadanimo ka geystay muddadii ay gacanta ku hayeen deegaanada ku teedsan xeebaha gobolka Shabeellaha Hoose iyagoo si qasaba u barakiciyay inta badan dadkii rayidka ah ee ku noolaa halkaas. kooxda argagixisadu waxay burburiyeen suuqyadii iyo goobihii ganacsiga iyagoo si ula kaca u baabi'iyey ilihii dhaqaalaha ee bulshada. waxay dumiyeen masaajidyo, xarumo waxbarasho iyo goobo caafimaad, taasoo muujinaysa colaad toos ah oo ay u hayaan nolosha iyo diinta. falalkan guracan ayaa si cad u muujinaya wejiga dhabta ee khawaarijta iyo sida ay u beegsanayaan dadka aan waxba galabsan. iyadoo laga jawaabayo dembiyadaas, ciidamada qalabka sida kuwa deegaanka iyo kuwa EUSOM oo kaashanaya saaxiibada caalamka ayaa 17kii bishii Diseembar 2025 bilaabay howlgal militari oo qorshaysan oo loogu magacdaray seefta qarsoon. howlgalkan ayaa si gaar ah u bartilmaamaysanayay aagga xeebaha ee gobolka Shabeellaha Hoose, gaar ahaan inta u dhaxaysa magaalooyinka Marka ilaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. waxaa Ilaahay fadligiisa in ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo ay hogaaminayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka nabad sugidda howlgallo culus ka waday dhulka ballaaran ee u dhaxeeya degmada Marka iyo magaalada Muqdisho in guulo la taaban karo ay ka soo hoyeen howlgalka loo yaqaano seefta qarsoon. howlgalkaasi oo muddadii toddobaadkii u dambeeyay socday ciidamo aad u tiro badan ay ka qayb galayaan waxaa lagu xoreeyay oo kooxaha looga nadiifiyay kooxaha khawaarijta tuulooyinka ay ka mid yihiin gal Saliimow, El Saliini, galka Jimcooy, Diirafuul, Jabad Eri, Ismaan Gurey. intii uu socday howlgalka waxaa sidoo kale la sifeeyey deegaanada Halambe, Garasgawaan, Awmaki. waxaa sidoo kale la xoreeyey Jilib Marka, Dhanaane iyo Gandarshe. waxaa dib loo furay oo la sugay ammaanka waddooyinka Jasiira, Dhanaane ilaa iyo Awmaki, waddada Muuri, Laanta Buuro ilaa Ceel Wareegow. ciidamadu waxay muujiyeen adkaysi iyo nafurnimo iyagoo galay godadkii ay argagixisadu qoteen. geesiyaasha qaranku waxay gaareen dhulka buuraleyda ah waxayna lug ku mareen dhulka bacaadka iyo xeebta dheer ee teedsan deegaanada howlgalka si loo ciribtiro joogitaanka argagixisada. meeshaan aan joognaa waa jilib Marka. alxamdulillaah ilaahay waa wuxuu makaniyey gacantii xoogga dalka Soomaaliyeed iyo macawiisleyda deegaanka oo la shaqeynaysay. howlgalkan wuxuu ka soo bilaabmay from Dhanaane, Boolanaagey, aduu dhul ballaaran oo waxa waaye oo deex iyo mareey kala ahba. marka alxamdulillaah maanta waxaan taagannahay jilib Markaan joognaa howlgalkan magaciisa waxaa la yiraahdaa seefta qarsoon waa howlgal barakeysan oo nimankan khawaarijta aan ku ciribtirayno. waxaa la burburiyey 14 walxaha qarxa. ciidamadu waxay gacanta ku dhigeen 3 gaari oo saarif ah, 1 nooho iyo 1 kaarib, 4 dhagarqabe oo qaabilsanaa miinooyinka, 1 dhagarqabe oo qaabilsanaa daabulidda dhaawacyada iyo raashinka. waxaa sidoo kale waddooyinka laga soo saaray miinooyin argagixisadu ku aastay si ay shacabka ugu waxyeelayaan. maleeshiyaadka khawaarijta ayaa ku fashilmay inay si toosa ula dagaalamaan ciidamada, waxayna doorteen inay ka cararaan dhammaan goobihii ay ku sugnaayeen marka laga reebo iska horimaad kooban oo ka dhacay Jabad Eri oo ahayd xaruntoodii ugu weynayd. waa maxay afkeeni waa maxay balankeeni bulshada Soomaaliya cadowgeed waa maxay amar shaqo dalkii diinta nafta Soomaaliya cadowgeed xoogga dalka. howlgalka seefta qarsoon waxa uu dharbaaxo culus ku dhuftay khawaarijta. wuxuu sii xoojiyey guulihii hore ee howlgalka duufaanta aamusan, kaas oo lagu xoreeyey inta badan degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. howlgalladii lagu magacdaray duufaanta aamusan iyo seefta qarsoon ee Shabeellada Hoose ahaa. duufaanta aamusan oo lagu qabtay 3 buundo Zabiid iyo Caanoole,
beriire iyo awdheegle iyo seefta qarsoon oo dhulka xeebta ah ee u dhaxeeya marka iyo xamar looga nadiifiyey bishii la soo dhaafay deegaanka dhanaane markii la xoreeyey argagixisada durba waxaa gaaray odayaasha iyo waxgaradka deegaanka waxay muujiyeen doorkooda wacyigelinta bulshada iyo garab istaagga waxay dhiirigelin u sameeyeen ciidamada qalabka sida isla markaana gaarsiiyeen raashin iyo xoolo nool oo loogu talagalay ciidamada ku sugan furimaha hore ee dagaalka si loo xoojiyo niyadda iyo adkaysiga howlgalka dalka looga sifaynayo kooxaha argagixisada dhanaan waa xoreysan yahay khawaariijta waa laga xoreeyey ilaahay baa mahad iskale ilaahay baa ka dulqaaday ka sokane ciidanka xoogga dalka ka dulqaaday iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya iyo nabad sugidda Soomaaliya alxamdulillah ayaa meesha xoreeyey annagana garab u nahay saacaddan waxay ka dambeeyeen hoo iyo hiilo wax allaal wixii ahel karno waa garab dhigaynaa waana bixinaynaa waana wax yeelaynaa garabkooda naga sugayaan naftadeena ka horey doonta ilaahay yiraahdo deegaanka dhanaane oo maalmahan ay howlgal ka hayeen dowladda federaalka Soomaaliya ay u soo dirtay taliyaalo oo maasha Allah oo ammaan iyo bogaadin mudan waana ku guuleysteen inay xoreeyaan deegaanka dhanaane runtii maanta waxaa qodb ku dukanay deegaanka dhanaane oo amni ah oo haddii aad rabto meesha rabto aad ka jiifi karto waa ilaahay mahadiis ka soko waxaa ku ammaanan dowladda waxaa ku ammaanan taliyaasha ciidanka Soomaalinimaa muuqato dhanaana dhowr jeer la qabti wal dhaafi wana la wacaymi imaahini beri ulukan oo aan nool wacnaa nimidi waxaan keenay in Soomaalinimo ay muuqato oo ciidan Soomaaliyeed kii raas casar raaska booli kimid kulli inay maahan joogan ku dhimooyin ku dhigtooyina ognaa waxaan soo boqonay ciidamadii ma aragti oo meesha qawati oo dhanaana joogtay taliyaashii gadoomiyeedkii dhana u nimid marka war wax ma taro war cilmi cawaada ma aha ilaahay garabkooda ha galo waa gal ilaahay oo dhameystiro waxaan aan mar waliba aan diyaar u nahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo maamulka deegaankaba haddii aan nahay dhaqankii in aan garab taaganahay mar waliba waxaan kala aan baaq u dirayaa shacabkii deegaankani ka kaxay deegaankan dhanaana ah waxaan leeyahay deegaankii waa nabad deegaankii waa amni deegaankii in ay dib ugu soo noqdaan aan rajaynayaa waa kaga mahad celinaynaa sharafi karaama leedihiin sida aad u soo niyeysateen aad u soo qasisdeen isla marhaantaana halkan safar ku imaateen sida aad u garab taagantihiin ciidanka qaranka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka xoogga dalka iyo ciidanka nisa iyo ciidanka deegaankaba sharafi karaama waaye maalintii halkan ay maaneynay masaajidka aad u burbursanaa nadaafad darro ka muuqatay deegaanka sidoo kale nadaafad darro zaid ah ka muuqatay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka deegaanka ayaa xil qaamay in ay nadiifiyaan maxaa yeelay dad muslimiin ah anaga waa ku cibaadeysanaa shanta waqti waa ku tukanaa ilaahay anaga aqbalo khawaarijta deegaankaas si xun bay u gasheen oo daran dadkii iyo maxaan ku dhahay deegaankii waa baabi'iyeen argagixisadii waxaa laga saaray goobihii ay ku dhuumaalaysanayeen waddooyin istiraatiiji ah ayaa dib loogu soo celiyey gacanta dawladda iyadoo waddada xeebta ee Muqdisho ilaa marka ay tahay nabad shacabka rayidka ayaa loo furay waddooyin ay argagixisadu xirtay ciidamada qaranka Soomaaliya waxay mar kale muujiyeen inay si buuxda uga go'an tahay difaaca dalka ilaalinta shacabka iyo ciribtirka argagixisada meel kastoo ay ku dhuumaalaysanayaan